qofkan wuxuu leeyahay naagteyda hal dalaaqo ayaan ku furay ayadoon ciddadii dhamaysan ayaan rajiyeystay waalidkeeda ayaa iga hor istaagay xaq ma u leeyihiin inay ii diidaan xaaskeyga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد su-aashaas jawaabteeda waxay tahay xaaska haddii la furo hal dalqadna lagu furo ama laba dalqad lagu furo ayadoo ciddadeedii ku jirto oo weli aysan dhammaysanin ninka waxaa u bannaan oo awood u leeyahay inuu soo ceshado soo ceshigaasi waalidkiina ma hor istaagi karo sidoo kale ayadana ma diidi karto culummada oo fuqahada waxay taqriiriyeen oo kutubulfiqhi oo taqriirku ah tasixu alrajcatu biduuni ridaaha rajcada waxay ansaxaysaa ayadoon raalli ahayn ayadoo diidan in la rajciyeysto way ansaxaysaa maxaa yeelay ciddada intay ku jirto weli waa zawjo weeyaan sidoo kale waalidkina awood uma lahan inuu hor istaago oo u diido awood uma laha awooddaasi waxaa la siiyey qofkii oo furay ayaa la siiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka ayuu ku sheegay arrintaasi isagoo ka hadlaya wuxuu yidhi wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii daalika nimankii furay ayaga ayaa ku xaqnimo badan inay soo ceshadaan marka maadaama rajciyada oo yani rajciya ay tahay oo ciddadiini weli aysan dhammaysanin ma u diidi karaan laa hooyaan u diidi karin walaa aabbaan u diidi karin walaa qaraabaan u diidi karin walaa ayadaan diidi karin masaladaasi wayna badan tahay saxna ma aha waxaa fiican shareecada islaamka in loo hogaansanaado haddiiba oo qofkii uu soo laabto insha allahu tacaala wax ka mancin karo ma leh ilaahay baa siiyey marka xaq uma laha inay hor istaagaan waana xaaskiisa waaye wallahu aclam